mahadsanid. qodobada warkeena ugu doorka roon waxaa kamid ah caawa dawladda wadankaasi Sweden ayaa ku dhawaaqday in ay tallaabo adag ka qaadi doonto isticmaalka maandooriyaha sida weyn loo keeno dalkeeda ee qaadka. madaxweynaha dalkaasi Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ayaa xaqiijiyay in la kharajiyay dulmatiin oo ahaa mid kamid ah madaxda sare ee ururka Jamiica al-Islaamiya. Allah u naxariistay Sheekh Mohammed Sayyid Tantawi oo ahaa imaamka ugu sareeya dalkaasi Masar iyo madhabada sunniga ah ayaa la sheegay in uu ku geeriyooday magaalada Riyadh ee dalkaasi Saudi Arabia. ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh ayaa weli booqasho ku maraya dalka Britain. ku soo dhawaada dhageystayaal haatanna warkii radioga Soomaalida Netherland oo fidsan. dawladda wadankaasi Sweden ayaa daboolka ka qaaday in ay tallaabo adag ka qaadi doonto isticmaalka maandooriyaha sida weyn loo keeno dalkeeda ee qaadka. afayeen u hadlay xukuumadda Sweden oo shir jaraa'id oo lagu qabtay magaalada madaxda Stockholm ee dalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay dhowaanta bilaabi doonaan qorshe iyo tallaabooyin adag oo lagula dagaalamayo isticmaalka qaadka iyo ganacsigiisaba. waxaanay sheegtay mas'uulkani in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Sweden ay yihiin dadka sida aadka ah u isticmaala maandooriyaha qaadka isla markaana ay jiraan dad ka ganacsada oo keena Sweden gudaheeda. dawladda Sweden ayaa intaas ku dartay in tallaabadan aanay ahayn mid weerar ku ah dadka Soomaaliyeed oo kaliya balse ay tahay arrin si toos ah u taabanaysa dhammaan dadka isticmaala kana ganacsada geedka qaadka la yiraahdo. waxaanay afayeenka dawladda Sweden beenisay in ay tahay arrin lagu tilmaami karo midabta koor. isticmaalka qaadka ayaa hore looga mamnuucay dalka Sweden waxaana lagu soo gelin jiray si qarsoodi ah oo ay dawladdu ka warhaysay imaanshihiisa. waxaase imika xukuumadda Sweden ay doonaysaa inay adkayso soo gelida qaadka ee dalkeeda oo ay ku tilmaamtay inuu yahay qaadku maandooriye aad u halis badan oo sababa dhibaatooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin qofka oo awoodi kari waaya in uu shaqo u tooso iyo in uu halis u yahay guud ahaanba caafimaadka jidhka aadamaha oo taag daraada. madaxweynaha dalkaasi Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ayaa xaqiijiyay in la kharajiyay dulmatiin oo ahaa mid kamid ah madaxda sare ee ururka Jamiica al-Islaamiya ee dalkiisa kadib markii ay dhowaanta weerar kadis ah ku qaadeen ciidamada nabad sugidda dalkaasi goob uu isku qarinayay oo ku taala duleedka magaalada Jakarta. madaxweynaha Indonesia Yudhoyono oo haatan booqasho ku jooga dalka Australia ayaa sheegay in aanay xukuumaddiisu ogolaan doonin cid ku qaraabata magaca Islaamka si istaba joog ahna wax ugu laysa. dulmatiin oo 39 jir ah oo u dhashay dalkaasi Indonesia ayaa lagu eedeeyay inuu yahay mid kamid ah mas'uuliyiintii ka dambeeyay qaraxyadii lala beegsaday goobaha dalxiiska ee jasiiradda Bali 2002. ciidamada ka hortagga argagixisada dalkaasi Indonesia ayaa sheegay in ay qudha kaga jireen ninkaasi isagoo ku jira internet cafe ku yaala galbeedka magaalada Jakarta ee Indonesia. tallaabadan lagu kharajiyay mid kamid ah islaamiyiinta mayalka adag ee dalkaasi Indonesia ayaa ku soo beegantay booqasho madaxweynaha dalkaasi Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono oo haatan ku marayo dalkaasi Indonesia oo dad badani ay kaga dhinteen qaraxyadii jasiiradda dalxiiska ee Bali. waxa kale oo ku soo beegmaysa booqashada dhowaanta bishan dabayaaqadeeda oo ku imaan doono Indonesia madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Barack Obama. Allah u naxariistay Sheekh Mohammed Sayyid Tantawi oo ahaa imaamka ugu sareeya dalkaasi Masar iyo madhabada sunniga ah ayaa la sheegay in uu ku geeriyooday dalkaasi Saudi Arabia. Sheekh Tantawi oo ahaa sidoo kale muftiga ugu sareeya uguna da'da weyn Jaamacatul Azhar ee dalkaasi Masar oo 18 jir ah ayaa lagu soo waramayaa in uu wadnuhu istaagay isagoo booqasho ku maraya magaalada Riyadh ee dalkaasi Saudi Arabia. Sheekh Mohammed Sayyid Tantawi ayaa loo magacaabay 1996 inuu noqdo madaxa ugu sareeya Jaamacatul Azhar oo la aasaasay qarnigii 10aad waxaanay xarun weyn u tahay muslimiinta sunniga ah. marar badan ayaa lagu eedeeyay Sheekh Tantawi muftiga Jaamacatul Azhar in uu yahay nin u xagliya dawladda dalkaasi ee uu hogaamiyo madaxweyne Mubaarak. madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaanta shirar kala duwan kula yeeshay London madax ka tirsan dawladda Britain. waxaanu madaxweyne Shariif Sheekh ugu horeyn la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Miliband kadibna wuxuu sidoo kale kulan la yeeshay ra'iisul wasaare Gordon Brown. wafdiga madaxweynaha Soomaaliya waxa uu aqalka baarlamaanka Ingiriiska kula kulmay wafdi ballaaran oo Britain oo qaabilsan iskaashiga caalamiga iyo
qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Britain. madaxda dowladda Ingiriiska ayaa madaxweyne Shariif Sheekh u ballan qaaday in ay diyaar u yihiin si gacan looga siiyo xal u helidda nabadda Soomaaliya iyo sidii looga hortagi lahaa argagixisada ku soo qulqulaysa Soomaaliya oo noqotay goob ay imika islaamiyiinta mayilka adag ee adduunku ku tababartaan. madaxweynuhu waxa kale oo uu ka hadlay xarunta aqoon-isweydaarsiga ee Chatham House, halkaas oo ay su'aalo badan ku weydiiyeen aqoon-yahano Soomaaliya iyo ajnabi isugu jira, iyo in xubno ka socda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Britain halkaas uu ku qaabilo. madaxweynaha ayaa warbixin ka siiyay dadweynaha xaaladda dalka Soomaaliya iyo sida uu doonayo in ay dowladdiisu u maarayso xaaladda Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqasho rasmi ah ku maraya dalka Britain, waxaanu ku sugnaan doonaa ilaa maalinta Khamiista. Shariif Sheekh ayaa lagu wadaa in uu kulamo kala duwan la yeesho jaaliyadaha Soomaalida ee ku dhaqan labada magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi Britain. halkaad warkaa kala socotaana waa Amsterdam, hoyga Soomaalida Holland, oo aad si toos ah uga dhagaysataan FM-ta iyo barta internetka ee dalmar.org. warkaygii caawana intaas ayuu dhegaystayaal inoogu dhan yahay.